kulan wanaagsan ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka waxaad ka daawanaysaan warbaahinta raadsan qodobada aan idiin haynana waxa kamida guusha madaxweyne Farmaajo ka gaaray murashaxiinta mucaaradka beesha caalamka waxay faragelin degdeg ah ku sameysay xaaladda jirta iyo wararkii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaaliya ee si cakirmaysa Ugaas Maxamed Weli oo caan ku ahaa hogaamiye dhaqameed si weyn u taageerayay dawladda nabad iyo nolol oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kulankoodii xasaasiga ah oo ay maanta yeesheen arrinta ra'iisul wasaare Roble iyo kulankaasi ayaan eegi doonaa murashaxiinta mucaaradka waxay ku fashilmeen dalab ay u jeediyeen gudoomiye Maxamed Mursal taasoo jawaab aysan ku qancin ay kala kulmeen Puntland oo ku daba jirta rag weerar argagixisay maleegayay inay ka fuliyaan deegaano ka tirsan maamulkaas diblomaasi ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka digay halis ka dhalan karta haddii dalka loo horseedo qas iyo fowdo dawladnimo la'aan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo Kismaayo ku laabtay xilli go'aankiisii hore uu ku taagan yahay shaaciyayna in madaxweyne Farmaajo ay u aqoonsan yihiin madaxweynihii hore waxaan eegi doonaa warbixin cidda sharciga u leh in madaxweyne ay Soomaaliya ka noqoto haddii Farmaajo xilka ka dhamaaday iyo cudur aan la aqoon oo ka dilaacay dalka Tansaaniya intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan warbaahinta raadsan waa 8 bisha 2 ee Febraayo sanada 2021 aan ku bilowno xaaladda hubanti la'aan ayaa dalka uu ku jira marka la eego siyaasadda cakiran dhinacyada siyaasadda iskaga soo horjeeda ayaa mid walibana waxa uu sheegaya in sharci ahaan isaga uu xaq u leeyahay marka loo eego hogaaminta dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu kiciyay muujada siyaasadeed tan iyo bilihii u dambeeyay oo tirin lagu waday muddaxileedkiisa isagoo aan u dhammaan saqadii dhexe xalay rasaas ayaa laga maqlay caasimada dalka ee Xamar kadib markii dad la sheegay in ay u tirinayeen muddaxileedka inuu ka dhamaaday ay rasaas u muuqatay sagootin madaxweynaha ay u sameeyeen haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa baqdin dadku ay soo wajahday in qalalaasi iyo foodo dawladnimo la'aan ah dalka loo horseedo sharci ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaa xukunka sii haynayay marka loo eego maadaama madaxweyne isaga bedela inta laga helayay aan dalka firaaq dastuuriya uusan imaanin dhinacyada murashaxiinta mucaaradka ayaa ku hungoobay qorshe ay u soo jeediyeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan taasoo ahayd in uu ku simo madaxweyne noqdo balse waa uu ku gacan sayray sida xogaha aan ku ogaanay intaasi kadib golaha midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaalka dalka oo galay laga bilaabo 8 Febraayo oo maanta ku beegnay 2021 golaha midowga murashaxiinta uma aqoonsana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay yiraahdeen golahu waxay soo jeediyeen muddo kororsi caburin gacan ka hadal iyo dib u dhac ku sii yimaada doorashada in aan la aqbali karin midowga murashaxiinta mucaaradka waxay soo jeedinayaan in la dhiso golo qaran oo ku meel gaara kuwaas oo ay xubno ka noqonayaan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo wakiilo ka socda golaha midowga murashaxiinta iyo bulshada rayidka sida ay sheegeen iyadoo sidaas xaaladda dalka uu ku wajahayo ayaa haddana shirar iska soo horjeeda magaalada ay ka socdaan oo mucaaradka iyo muxaafadkaba ay leeyihiin madaxtooyada Soomaaliya ila wareedida aan ka helnay ayaa sheegaya in xalay aan laga seexan oo madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo xubnaha aadka ugu dhow madaxweynaha qaranka ay kulamo aan loo kala kicin la leeyahay waa ay ku yeesheen oo xaaladda dalka iyo waliba wax soo kordhay ay kaga hadlayeen beesha caalamka ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadleen xaaladda murugsan ee hubanti la'aanta dalka uu wajahayo ee dhanka siyaasadda iyo hogaaminta madaxweynaha qaranka beesha caalamka waxay sheegeen in aan la aqbali karin dalka in dib loogu celiyo rabshado iyo waliba burbur ku yimaada dawladnimada lagu soo dhibtooday beesha caalamka warka ay soo saartay maanta oo isniin ahayd ayaa waxa lagu yiri waxaan si xiiso leh u dhageysanay hadal jeedintii madaxweynaha oo golaha shacabka ka horjeediyay 6 bishan Febraayo waxaana si gaar ah hoosta uga xariiqnay sida uu u doonayo inuu sii wado wadahadallada u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada wadahadalladaas oo ujeedadoodu ay tahay in la isla garto wadiiqo lagu heshiiyay oo loo maro qabashada doorashooyinka waxaan si xoog leh u taageersanahay wadahadal dheeri ah oo ku qabsoomay jawi degan oo wax lagu dhisayo
waxaan mar kale hoosta ka xariiqaynaa ayay yidhaahdeen beesha caalamka in natiijooyin kasta oo aan ahayn kuwo la isku raacsan yahay oo ay ku jiraan geedi socod barbar socda ama doorashooyin dhinac keliya ah aan loo dhammayn ama falal kale oo aan si ballaaran loogu wada heshiin in aanay heli doonin taageerada saaxiibada beesha caalamka. war qoraal oo ka soo baxay dhankiisa xafiiska Donald Yamamoto oo ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa loogu hanjabay dhinacyada Soomaalida si degdeg ah waa in loo xalliyo ismariwaaga doorashada ayuu yiri oo u muhiima mustaqbalka Soomaaliya. Yamamoto hadda waxa la joogaa buu yiri xilligii la xallin lahaa arrimaha taagan. hagaag xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana kulankan uu ahaa mid aan caadi ahayn isla markaana akhrinta saddexaad ee wax ka bedelka sharciga waxbarashada heerka koobaad heerka labaad iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa laga hadlay iyo warbixin ku saabsan waxqabadka boqolkii maalmood ee 3 bil iyo 10 cisho ee xukuumadda ra'iisul wasaare Roble shaqeynaysa wixii uu qabsoomay. xildhibaanada golaha shacabka ayaana fariimo loo diray waxa ay ku xaadireen kulankaasi iyadoona golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble 9 bisha oo bari ku beegan la filayo inuu hortago iyadoo ay xildhibaanada dhageysan doonaan arrimaha ku aadan doorashada iyo waliba caqabadaha xukuumaddiisa ay ka wajahday. dhinaca kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka isla markaana kulankaasi maanta xaadiray ayaa soo banaan bixiyay arrin dadka badankood aysan waxba ka ogeyn isagoo sheegay in xarunta Villa Hargeysa iyagoo kulanka kule ay ku dhex arkeen ku dhawaad 100 rag dhar cad ah oo bistoolada watay 100 ciidamo dhar cad ah oo bistoolada ku hubaysan ayaa maanta golaha shacabka gudaha loo soo galiyay iyadoo ajendaha golaha uu maanta ahaa akhrinta hindisa sharciyeed iyo qaybinta warbixinta la xiriirta waxqabadkii xukuumadda xilgaarsiinta ee 100 maalmood. waxaa isweydiin mudan buugaan yar ee 100 ciidanka ah galbinayaan waxa ku qoran mise qorshe kale oo la damacsanaa laakiin fashilmay ayaa jira buu isweydiiyey su'aal ahaan xildhibaan Mahad Salaad. markana Puntland wararka naga soo gaaraya deegaanada Puntland ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee maamulkaas ay bilaabeen howlgallo ka duwan kuwii hore oo ay xaafadaha magaalada Boosaaso ka sameynayaan caasimadda ganacsiga Puntland. waxaa halkaas dhowr jeer ka dhacay falal amni darro isla markaana la sheegay in qalqal lagu gelinayay nabadgelyada deegaanka. howlgalka ayaa ciidamadu waxay ka sameynayaan xaafadaha iyo wadooyinka iyaga oo baaritaano ku sameynaya gaadiidka nooca raaxada iyo guryaha qaar oo ay faramuuq ahaan u galayeen kadib shaki laga qabay. qoraal ka soo baxay ciidanka BSF-ta ee Puntland ayaa waxa lagu sheegay in ciidamadu ay xaafadaha Boosaaso ka baadigoobayaan shakhsiyaad ka tirsan waxa loogu yeero argagixisada kuwaas oo doonaya inay weerar ka fuliyaan magaalada Boosaaso. ciidamada Puntland ee BSF-ta loo yaqaan ayaa sameeyay howlgal lagu raadinayay shakhsiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada oo doonayay inay falal argagixisnimo ka sameeyaan magaalada Boosaaso ayaa lagu yiri war saxaafadeedka taliska ciidanka soo saaray. ugu dambeyn waxa ay shacabka ugu baaqeen inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si lagaga hortago wax kasta oo lid ku ah amniga magaalada Boosaaso. waxaan ugu soo maqan cudur aan la aqoon oo ka dilaacay dalka Tansaaniya oo aan eegi doono aan soo hormariyo. ergeyga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadme Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka iyo doorashooyinka dalka 2020-2021. diblomaasigan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda jahwareerka siyaasadeed ee dalka uu lagu hadlagalay isaga oo sheegay in loo baahan yahay in la xalliyo si loo badbaadiyo dalka iyo dadka. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Yuusuf Garaad ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in xasiloonida Soomaaliya ay tahay dan guud oo ay tahay in laga wada shaqeeyo. khilaafka jira waa siyaasad noqo kii ka sheekeeya sida loo xalliyay. xasiloonidu waa dantaada, waa danteyda, waa danteena, waana danta guud ayuu yiri Yuusuf Garaad. Soomaaliya ayaa xilli adag hadda wajahaysa xaaladda kala guurka marka la eego iyo khilaafaadka ka dhashay doorashooyinka dalka ee sanadkan 2021 oo aan lagu heshiinin kadibna waa lagu kala tegay shirar dhowr jeer la isugu yimi. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waqtigiisii muddaxileedka uu ka dhamaaday isla markaana ay dhinacyada siyaasadda ka soo horjeeda ay leeyihiin uma aqoonsanin madaxweyne qaran in uu yahay Soomaaliya.
hagaag allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho xalay saqdi dhexe ku geeriyooday ugaas maxamed weli oo ka mid ahaa ugaasyada dhaqanka Soomaaliyeed kuwada ugu caansan. wuxuu ahaa ugaaskan mid aad u taageerayay hanaanka dawladeed ee dalka isla markaana ku baaqi jiray in aan dalka dib loo celin. dawlad baa dalka ka jirta bacda siyaad bare dawlad aan soo marin baa Soomaaliya ka jirta. qabka markii la yiraahdo dhaqaalaha markii la yiraahdo wadaniyada markii la yiraahdo dhibco waxay haysataa dawladan wali wax la yimid aysan jirin. wuxuu ahaa hogaamiyaha dhaqan ee beesha uu ka soo jeeday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhowr jeer ayuu goobaha dadka isugu yimaado ee kulamada ka sheegay in dawladda aan la burburin isla markaana shaaciyay in dawladdu ay tahay mid dadka wada deeqda. dawlad goboleedyada markay shirahayaan macal madaxweynaha gabraynu dhex fadhiyi jiray waad garanaysaan. waa ogtihiin maanta dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda kaligood baa shira. allah u naxariistay ugaas maxamed weli ayaa waxa uu u geeriyooday cudurka coronaviruska oo cisbitaalka Martini maalin ka hor la dhigay, ugu dambeyntiina uu ugu xijaabtay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa. gabagabada ayaan soo gaarnay daawadayaal. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo, waxaana uu ka hadlay xaaladda shirkii fashilmay doorashooyinka iyo waqtiga xaaladda kala guurka Soomaaliya, doorkooda ku aadan Jubbaland iyo waliba tanaasulka ay sameeyeen iyo arrimo kale. Axmed Madoobe ayaa shaaca ka dhigay in dowladda federaalka gaar ahaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ay Jubbaland dhowr jeer kala hadashay sidii xal mastuur looga gaari lahaa xiisada ka dhalatay kuraasta xildhibaanada ka imaanaya gobolka Gedo oo Jubbaland in laga gacan bixiyo uu doonayay madaxweynihii hore, ayuu yiri Axmed Madoobe. madaxweynaha Jubbaland ayaa maalmo ka hor shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ka sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay markasta ku dadaashay sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka ka dhashay qadiyadda gobolka Gedo iyo xildhibaanada gobolkaasi ka imanaya ee dowladda federaalka. arrintan waxay ku soo beegmaysaa dib ugu laabashada Kismaayo Axmed Madoobe xilli banaanbaxyo lagaga soo horjeedo maamulkiisa maalmahan ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo, iyadoo shacab hubaysan shalay la arkay iyaga oo ku dhawaaqay in ay dagaal ka xigaan haddii mar kale gacanta dib loogu celiyo gobolka Gedo maamulka Axmed Madoobe hogaamiye ee Jubbaland. magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxaa la soo sheegaya in ciidamo hubaysan ay maanta halkaasi gadood ka sameeyeen. ciidamadan ayaa si gaar ah uga cabanayay xuquuq la'aan muddo dheer ah oo ay tababar ku qaadanayeen xero aruuris oo ku taala deegaanka Xanan Buure ee duleedka Dhuusamareeb. waxay diideen isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada dhexmara, dhagaxaan ayay ku xireen magaalada meelo ka mid ah iyagoo xitaa xiray wadada aada madaxtooyada magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug uu ku shaqeeyo, inkastoo markii dambe xaaladda saraakiil ay ku soo baxeen ballanqaadna loo sameeyay askarta gadoodka ka sameeyay maanta Dhuusamareeb ee hakadka geliyay dhaqdhaqaaqa magaaladaasi. ma ahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale ay dhacdo, iyadoo dhowr jeer sidaan si la mid ah ciidamo gadood sameeyay ay sortaa ku sameeyeen dhaqdhaqaaqa guud ee magaalooyinka deegaanada Galmudug qaybo ka mid ah. markan qodobka dibadda, cudur aan la aqoon ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu ka dilaacay koonfurta waddanka Tansaaniya. qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalkaas ayaa baahiyey in xanuunkan uu ku dhacay dad kala duwan, isla markaana qofka calaamadaha laga arkayo ayaa waxaa ah inuu dhiig matagayo marka uu ku dhaco. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee degmada Shunya ee dalka Tansaaniya koonfurteeda ku taala ayaa sheegay in dadka qaarkood cudurkaas uu soo ritay ay saacado gudaheed u dhimanayeen. wasaaradda caafimaadka dalka Tansaaniya waxay hadda ku waramaysaa in dhaqaatiir iyo waliba gubaro loo xil saaray arrintan inay degdeg baaritaano uga sameeyaan cudurkan iyo waxa uu yahay. cabsi weyn ayaana dadka Tansaaniya ku dhaqan soo wajahday markii cudurka oo u qaab Ebola la sheegay in uu dalkaasi ka dilaacay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen warbaahinta raadsan. inta aan dib dambe isku arki doonno, nabadgelyo.